weligii ruuxaan u arkay role model male from day weligii ruux oo yani aan hawo u gala inaan la qaday male amin okay nabiga iyo arrimahaas waa jira laakiin dad oo bini'aadan oo leeyahay ninkaas ati oo ma la qadaynaysaa mise ninkaasa weligii qalbigayga ma soo gelin kaasoo kale ilaahay muxuu kaaga dhigi waayay weligii nin min qadar waa iimaanka muhiim u ka yahay wax kasta oo noqotidna waa waxun ilaahay qoray of course dadaal waa jira hiya andaya laakiin trajectoryga ruuxa markaa fiiriso meesha u socda waa wax buu ilaahay qoray laakiin aniga weligii nin oo role model aan ka dhigta hataa dadkan waxaan dhaar markaan role menta iyo balaayi role waxaan dhahay hadhihin axmed oo kale axmed waa ka fiicnaan kartaa axmed waa ka fiicnaan noqon kartaa yani hadhiin ruuxaasaan ku tayana adiga jidkaaga hagaajisadan jidkaas mar inaad waalidkaaga baari u noqoto sidoo kalena aad iska ilaaliso xoolaha dadweynaha waa furaha koowaad ee guusha isla markaana ku horseedaysa waddo kasta oo aad ku guulaysan karto ducada ugu weyn oo igu dhacday inaan dawlad u shaqeyno ama mas'uuliyad aniga waxaan dhahay habaar maanta Kenya ninka ugu weyn ku dhici kara waa inuu dawlad u shaqeysid oo dawlad lacag dad iska leeyihiin ilaahay gacantaada u galiya because maanta ninkii gacan tiisa ay gashaa lacag ama shicib wuxuu iska leeyahay kulli waa wada cunayaan qabadana ilaahay taasuu iga badbaadiyay weligay Axmed Naasir lacag uu leeyahay una jeebkay ku jirto ruux kale lacagtiisa weligay jeebkeeda ma soo galin qormadan uu qalinka u qaatay Salmaan Khaliif ayaan waxaan ku eegaynaa wareysi dhawaan laga qaaday garyaqaan Axmed Naasir Cabdullaahi waxaan daawaday wareysi qiimo badan oo laga qaaday qareen sare Axmed Naasir Cabdullaahi oo ah qareen aad caan uga ah waddanka Kenya iyo guud ahaan geeska Afrika wareysigan waxaa ka qaaday wariye Cabdijaliil oo ku xildheel wareysiyada dhaadheer waxaana uu soo koobayaa dhowr qodob oo waaweyn oo kala ah kow asbaabaha guusha baari waalideynimo dadaal shakhsi ah iyo duca waalid iyo kalahaada aruuriyaad hanti kaydsi noolaha ilaahay abuuray waxay u qaybsamaan qolo wax kaydsata sida bini'aadamka iyo quraanshada qolo aan waxba kaydsan sida inta badan duurjoogta libaaxa oo kale isagu waxa uu sheegay in uu qaybtan dambe ee aan waxba kaydsan uu yahay risqiga halkee yaala miyi iyo magaalo waxa uu sheegay in risqigu uu yaalo magaalo weyn mid ay ka weyntahay ee ka irsaaq badan tahay noocyada kiisaska uu qabtay mid aan waxba laga raadin oo diini ah sida qof muslim ah oo la dulmay iyo qof laga xoog badan yahay ciduu doonaha noqdee kiisaska aanu qaban kiiska qof wax dulminaya kiiska dadka ka ganacsada waxyaabaha xaaraanta sida qamriga iyo wixii la midka ah shaqo dawladeed ducada ugu weyn ee ugu dhacday ayaa waxa uu yiri in aanan weligay dawlad u shaqeynin oo aanan maalin qaadanin lacag dadweyne cabsi aan ka qaba in ay ugu tagto ku dayasho mar wax laga weydiiyay aad ku dayataa ama tiigsataa waxa uu ku jawaabay cid aan tiigsado ama ku daydo ma jirto markii laga reebo nabigeena nabadgelyo naxariisi korkiisa aatee waxaanu waxba kama jiraan ku tilmaamay dadka dhaha qof hebel ayaan ku daysadaa caawinta dadka sida markii uu jaamacadda Mareykanka uu aadayay loo caawiyay inuu qaraabadiisa u kaalmeeyo wax akhriska mar waxa laga weydiiyay waqtiga firaaqada ah maxaad akhrisaa waxa uu ku jawaabay waxaan akhriyaa buugaagta ay qoreen qareenada Mareykanka ugu sareeya sababtuna waxay tahay inay shaqadiisa horumarin u tahay dadkaasina ay yihiin dad aqoon iyo caqli dheeri ah lagu soo xulo marka shaqada ay imaanayaan sidoo kale wareysigiisa dhalinyarada ayuu talooyin u jeediyay dhalinyarada waxa uu kula taliyay in la dadaalo si fiican wax loo barto waalidkana baari loo noqdo taas ayuuna ku sheegay in guusha qofka shakhsiga ah ay keeni karto mar wax laga weydiiyay waxa aad ka tagtay aad jeclaan lahayd inaad dib u samayso waxa uu ku jawaabay in aan hagaajiyo shahaadada PhD-da si aan doctor u noqdo mar laga weydiiyay su'aal breefad ahayd oo isaga u gaar ahayd waxa la weydiiyay oo ku saabsan qoyskiisa waxa uu ku jawaabay in xaaskiisa markii wiilka curadka ay u dhashay kadib inay jaamacad u aaday dalka Ingiriiska markii ay soo dhamaysatayna ayna wax shaqo aadin oo barbaarinta carruurta ay xoogga saartay isaguna oo banaanka uga soo shaqeynayay carruurta waxaana uu wareysigiisa ku sheegay in uu ka ballan qaaday in uusan weligiis la guursan doonin taasna uu ka dhabeeyay ilaa iyo hadda wareysigan uu bixiyay garyaqaan sare Axmed Naasir Cabdullaahi waxa uu ku qotomaa qodobo muhiim ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo da' kasta oo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin uu ka anfacayaba qaybaha nolosha marka loo eego shaqooyinka dawladnimada kuwa qaaska iyo sidoo kale shaqooyinka kale ee bulshada Soomaaliyeed loo hayo ee lagu qabto daacadnimada Axmed Naasir waxa uu ka mid yahay qareenada sarsare ee dalka Kenya tusaale muuqda ayuuna u yahay hadalkiisa iyo wareysiga uu bixiyayba in la iska ilaaliyo xoolaha dadweynaha
afrika wadamada ugu hooseeya ayaynu kaga jirnaa dhanka cadaaladda ama dadka cadaaladda loo raadinayo ee markaasi dulmanayaasha ah Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada garsoorka iyo sidoo kale cadaaladduba ay hoos ka tahay isla markaana xoolaha dadweynaha ay ka yihiin waxyaabo ay madaxdeena iyo garsoorkeenuba aysan muhiimad gaar ah siinin waxa uu sheegay Axmed Naasir inuu aad isaga ilaaliyay in dulmanayaasha uu kiisaskooda ku takrifalo sidoo kalena waxa uu sheegay in xoolaha dadweynaha ay gacantiisa galaan isagoo oo aad uga fikiraya in mustaqbalkiisa dambe ay u xumaan karto tani waa tusaale u muuqda in qof kasta oo ka shaqeynaya garsoor ama cadaalad ay tahay in uu si daacadnimo ah bulshada dhexdeeda ugu qabto waxa uu markaasi ka shaqeynaya ee ah garsoorka Axmed Naasir waxa uu ka mid yahay qareennada sarsare ee dalka Kenya waxa uu qareenno kala duwan u soo noqday madaxweynayaasha dalka Kenya sida Uhuru Kenyatta iyo William Ruto oo uu hadda u yahay sidoo kalena waa qareen si weyn looga yaqaano guud ahaan adduunka iyo sidoo kale qaaradda Afrikaba waxa uu tilmaamay ducada waalidka oo la qaato in ay wax walba ay ka hor istaagi karto sidoo kalena waxa uu sheegay in dadka dulmanayaasha in loo gargaaro ay tahay muhiimadda koobaad ee guulahaaga horseedi karta